السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مد الصومالية سو دواada mar labaad iyo mar saddexaad waa ninkii Cabdikhaliq Macalin Dhooxyara ahaa oo idin soo gudbinaya sheeko kale oo cajiib badan. sheekadan wixii dhacday xilli dhow oo waqti yar laga joogo waa sheeko xadiis ah oo cusub. sheekadani sidan bay u dhacaysaa mar rabo inaan sheego meesha ay ka dhacday laakiin wax dhacday xilli cusub. wiil Soomaaliya oo Soomaalideena kamid ah dadkeena Soomaaliyeed kamid ah baa xanuustay oo dhalinyaro ah waxa ka bixi waayay laf xanuun alkano xanuunta xaq xanuunta dhabarku xanuuna laf xanuun ka bixi waayay dhakhtaru u tagtay daawooyin baa loo qoray waxba waa ka tiri waayay wax badan waa iskaga dareemi waayay ninkii markuu wax badan iska dareemi waayay mar labaad aan xasuusiyo hadaa channelka ku cusub tahay inaad subscribe saadaan videogana like siisaan commentina aad iga soo bixisaan aragtidiina sina share gareysaan. ninkii dhalinyarada haduu laf xanuun ka bixi waayay uu ka bixi waayay meel kasto xanuunta jointiyada isgoysyada wuxuu u tagay markii dambe dhakhtar masaariya loo tilmaamay. masaariduna aad bay dhaqaatiir u tahay dadkan Egyptianiska Ingiriiska Egyptian la dhaho oo masaaridana aad bay u yihiin dhaqtaro. nin dhakhtar ah oo lafaha ku takhasuso masaariya waa loo tilmaamay wax ninkaas halka fariisto ugu tag ninkaas isaga daawadiisu xiis fiican tahay dhakhtar aad loo amaanayo. ninka halkiiba ku orday wuxuu tagay dhakhtarkii masaariga ahaa. marka dhaqaatiirtu markii qofka loo qoro daawooyin loo qoro oo qofka daawooyin loo qoro intaan isbitaalka marka tagtid isbitaalada dambe casriga ah ay doonad ku Soomaaliya ama isbitaalada dhanba qofka wax laga buuxiyaa form ama waxba laga qoraa magaciisa da'du jiro inuu guursaday inuu soo guursan wuxuu dhanba waa laga qoraa nationality-giisa haduu wadanku wadan international yahay qofku meesha ka soo jeedo waxaas dhan waa laga qoraa qofka xogtiisa. waxa la yiraahdaa demographic data baa laga buuxiyay markuu formkii laga buuxiyay dhakhtarka adigu loo gudbiyay ninka dhalinyarada ahaa dhakhtarkii uu la kulmay. dhakhtarka marka uu haystaa warqadii formkii uu akhrisanayay saa ugu jeedaa ninkiina uu sheekaysanaa uu la sheekaysanaya dhakhtarku yarka wiilka xanuusnaa wuxuu ka qaadayaa waraysi wuxuu marka u jeedaa dhakhtarka ka akhriyay inuu yahay nin dhalinyaro ah inuu soo wali guursan daadiisuna inay tahay wixii dhan buu ka akhrinayaa warqadii uga jeedaa. wuu waraystay wixii inuu dhiig baan ka qaadayaa adu saambalo dhiig iyo waxaan ka qaaday dheecaano dhiigii uu ka qaaday wixii raajooyin waxbaan halkan meelaha ugu badan raajooyin ma ku saaray oo ka lacag yar baad iska bixinaysaa lacagtii bixiyay raajadii waa la saaray wixii waa la saaray. ninkan horu dhaqaatiir badan u soo maro raajooyin iyo loo soo saaro waxba looga garan waayay raajadana marka qofka la saaro aduu ninka raajadii uu saaray markuu raajadii ninka saaray raajadii raajaduna inta soo lafood bay soo qabanaysaa qofka dhakhtarka uu ba akhrin kara lafta jaban lafta aan jabnayn waxay seetahay meesha qalloocda qofka wax jira lafiisu si laga rabo inay yihiin waxba laga yaabo qofka ilaahay inuu lafiis kamid aysan ku jirin oo ilaahay san u abuurin baa dhici ka dhawaana la arkaa qof laga yaabo in meelahan kan wax ka maqan yihiin oo sida ahayn oo ilaahay sida u abuuray way dhici kartaa. laakiin ninkii warqadii isagoo raajada soo soo akhrinaysa wax dhakhtarku soo qabtay raajada uu tusay wixii soo ma jeedin raajada taa wax badan baan ku arkay waxa ay ugu yartaa buu yiri qof ehelkaaga ama abtiga ama adeerka ama awoowaha ama aabaha ama hooyada hadda qof ku joogo ehelkaaga oo kuugu dhow igu yar. ninkii waa booday mid adeerkiisu soo watay dhakhtarkii waa lagu soo laabtay dhakhtarkii markuu lagu soo laabtay maxay meesha kala kulmeen dhakhtarkii markii lagu soo laabtay ninkii adeerkiisu wuxuu yidhi kan adeerkiisu waa u tahay ada adeerkiisa waa ka naxaysaa waa ka naxaya wuxuu yiri ninkan wiilkani wax xanuun uu qabo ma jiro ana waa wareystay xanuun horena lagama helin ma garatay hadeerna xanuun waa hayaa ninku waa xanuunsan yahay laakiin inta computer la qaato ama dhiig laga qaado ama bahalka laga qaado ma hayo xanuun noocaas ma garatay. ninkani waxa daawo u ah guur waa inuu guursadaa sida ugu dhaqsiyaa badan reerkiisa ula hadla dadkiisa ula hadla ninkan dhalinyarada guur buu baahay loo guuriyo intaas u daawo ah raajada tan iyo dhiigeen waxaan qaadnay waxba soo saaray kullu waa negative wax ka maqan ninkani ma jiro waa complete oo kaliya waxa u dhiban oo waxaan dhan uga baxayeen inuu guursado ha guursado. halkii baa odag adeerkiisa oo yaaban oo dhakhtar ka baalki garaysan yani ka khibrad badan weligay ma arag biyo odag abiis iyo dadka suulaad wixii ninka waa xanuunsan yahay aad buu xanuunsan yahay xanuuno badan buu ka tirsanaya lafaha dhaqaatiirtina waxba waa ka sheegay nin masaari ah wixii wiilkan guur baa daawo ah loo guuriyo sidii baa loo guuriyay ninkiina waa caafimaad muddo kadib dhakhtarku laabtay wuxuu geeyay lacag iyo alaabo iyo uu geeyay xiri aad baad u mahadsantahay waliba adeerkii buu ka haystay. marka
waxaan u maleeyaa halka 10 badan baa ku jira nabiguna calayhi salaatu wasalaam oo isagii xadiis saxiixa ya macshar shabaab man istadaa'a bikum albaa falytasawwaj war dhalinyaro ninka awooda habeen iyo maalin wuxuu isku kaafiyo markuu aroosta habeen iyo maalin wuxuu cuno ninka awoodi kara baa'ada waxa la yiraahdaa $5 oo kale $10 oo kale wax qofka habeen iyo maalin ay qoys cuni karaan qofkii awoodo hela habeen iyo maalin ma aha duu inta nolosha ka hartay qofkii haysta ha guursado ninka haysto ha guurso nabiga calayhi salaatu wasalaam ma garatay buu yiri xadiiska saxiix ku yiri marka dad badan oo xanuuna ka tirsanaya waa inay iska guursadaan ilaahay baa u saqiraya aayad quraan ilaahay wuxuu leeyahay dadkiina adoomada ama dadka aan waxba haysan u guuriya adaysan waxba haysan ilaahay baa qani ka dhigayo qani wuxuu ka dhigayaa inay isku filnaadaan qaniga Soomaalidu wuxuu yaqaan qofka taajirka oo lacag haysta laakiin erga saxda ee qani waa qof isku filan baa la qani kaaftoomay ilaahay baa qani oo kaaftoomi kara laakiin qof adigu isahayn kara marka sheekadaas aan idin hayay waan idin la wadaagay channelka subscribe isa videoga share garay asxaabta la wadaag comment ka soo bixi aadi aad baad imahsantiin walaakin Cabdi Khaalid ma عنده xiro oo mar labaad idin fiidkaya wassalaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh